Ya choga, ya choga, ya choga, ya choga, ya choga. Hidiya dhaqankii, hidiya dhaqankii, hablihi, hanaanka wacna. Hidiya dhaqankii, waa qaawanaantii waa joojiyey. Hidiya dhaqankii baan wadaa. Hidiya dhaqan baan wadaa. Hanaankii iyo quruxdii. Hidiya dhaqan. Hidiya dhaqankii. Soo dhowna bal hagaaji. Hagaaji waa. Saan baa loo labisan jiray waa hidiya dhaqankii. Hidiya dhaqankayagii oo hidiya dhaqankii. Hidiya dhaqankii. Hidiya dhaqankii baan u soo labisanay. Soo gala war baan idin wada caaw. Tolo islaamahan Ingiriiska joogana waa islaamo waara. صابت السجارة سكسو استوضي بيصدرين صاري انت اصلا ما كفاهم يا وانت اللي قبري وحكى لك ما غنى وانت اللي قبري كبدا مرة نحرني ساقرة واتواني لبدا كنيو لبيا لبدا بسالة كنسيه لبدا كنيو لبيا لا تقدر كل حرن لها من صوص صارني قبلوا حرن لهاين وكاساس اللي بسنية عروسية دق وما بهنا هذا سوق التريادة سويب سنية دق يا هبلا يسوط طليو حاول لي يسوط تلين أنا قابل مكتلين كي برطي كابل ناقلون بابا هبلا يكاله خور طلع كاله عبر سودو هذا والسلام يا إله إلا ساخذ رابع الله يسقدقه يا ساسل يسقدقه ده خطر فشل بعد سوق ما يقفرط الليلة يو لو عبستو أول محل سمين شري عروسة مرة كده وكدعان ولا الدد شري قبل وقتك ما أدري هذا نظرته هذا تواكم سام قروح بطي عوضة يجوا مقية هاي مرة ويمنا يا أنت عشان دلسي تشوجا يا ودريمي كرتان ها ضيقي إسماعيل دوي إسماعيل دوي نبالي هذا لكن سوى له إسماعيل صابت وربا الذين يا إسماعيل راح Quand on cherche à dormir comme un bébé, même quand on a un bébé, Phytose Nuit, s'endormir. Yeah. la joogayaa inta Ismaaciil soo socdo anaga meesheeda bandow baa laga dhigay hadii ay gaadho ay labada habeenimo gaadho 12 ku dhaco waa bandow marka waxa weeyaan asxaabay soo dhawaada waa fiicanahay waa wanaagsanahay labiskana waa kulli waa lagaga dayan doonaa tan oo kaliya ma aha si fiican idin tuso labiska quruxdiisa sidii isugu eeg yahay هاي موجودة مع الركة على البيشوجة فرقلها جدا باشيرة تغيير المجال لمده جدا صاوق خضرة نفتي ذي اللبس كده خضرة قول له شرحوا إيه أنا قعرور طيب اللبس كده يعني اللبس كيجا إيه أنا السقورحيو خلاص أو باطر بالمرصدي وجه ريارها
والله بوتر برمس واحد دوني يمكن وضيق بصوق قلو إسماعيل إنه يابا بقى أوه وبيبي أولو بونسوار ها مركو صوق قلو سربرايز وايس دياري بين دي مشي قرقا أولاد عربتي وحوده واد دياري دق فريد ولا أنا فريدة هاي نينكي واي صاوعي عاونا أرجيجي قرك لها أرجيجي قرك لها أورج على نينكي عاونا واي صاوع أرجيجي قرك لها واي صاوع أورج على أرجيجي واي صاوع أرجيجي حيرة ردي سينيو دكورو يا نينكي دكورة عاونا واي صاوع ساولو وقادا طلب حالة يقصية طلب حالة يقصية على مال كريت قرع ضرب حرامي ماشي جوجا مقع إله عاونا واي صاوع وقرالك يصدر واكن ونفتو بإيه كان محو يقو صدر صدي بيرقو هرا مبارك محمد فارح أيوه قراء إما كوحو كو صدر صدي يا بلاد بقرو تلو يا إيجا عشده طالو يا إيجا عشده دان كان أركولي جاي ماشي جوجا إلى أركول وحلا يسكب عايم معه نعسكن دروغة سانك كقادنيا يا إيجا قبصة طاو يكاد عن ضدك توسع maxay in amiir nuclear maxay ku soo galay haddo mar dhaweed way soo garaa miyuu jecel yahay ma aqaano ma Ismaaciil baan u soo diraa ma garanayo ninku baroorta orgeyga ka weyn ninka xiirani Ismaaciil buu socdaa wax kale uma socdo de marka Ismaaciil la khadra ma soo dhaafayo waayo kaada koor wuxuu hadiyad ma kuu keenaa marka abar jecel ninkii meedin cishin run baan idii sheegaya abar jeclooy ninkii igama idin qabsanin igama idin cishinin nakada xiiraa eyga ahaa igama idin cishin yaa igama idin cishin soongurkii dumarka Soomaaliyeed la daba dhigay igama idin cishin waxay iga cishin weynay garan waay marka uu soo garaacay lambarka war iga tag baan ku wariya maasanjarku iga soo wac wax waalan ووحن بقي تعطونا هينو نعسة marka talma Ismaaciil ma u diraa Ismaaciil raaxeeye yaa ftada ka garaac ma dhahda ftada ka garaac naxda ka saan nidalka kala la arag yaa halo tiro hada live kiba ku jirnaa ma idinka jaraa taa ku jirtid waa kula hadli karnaa maxaa dhacay haye bal markaa hadlo anigu xurriyadan ka hadlayaa nin bay bartay dhaka xiiran aniga iyo umbu naftaydii umba la daba dhigay yaa gruupka soo dhig waan daawanayna waana kula soconaynaa hay gruupka idii soo dhigay hay nawalay daba dhiga wax daba dhiga ba garo ya waxaasu ii soo diraya marba ila qof waaran war ilaahay baan dib kula fooriyay eedaniik waa layga cishan waayay eedaniika layga qabto waaniga soo blog baan saaray ma ujeedaan anigu beenta ma sheego blog baan saaray daawada wixii ii soo qoray eega codkiisina waa idiin duubay dhageysta ma ujeedaan wakaa wuxuu igu soo garay amiir nuclear wuxuu igu soo galay ikaad wakaa wuxuu igu soo garay amiir nuclear yaa bahaba was khaniis iga cishada waaroo iga cishada waarooy rida seenyan iga cishada waarooy soongurka iga cishada waarooy iga cishada saas ii soo wacaya ma ujeedaan sheekadii madaxii calool baa bilaabantay wakaa qoraalku ii soo qoran ma ujeedaan wakaa sheekadii baa bilaabantay abar jeclooy waa ballanay aan isdayno hooy iga cishada war ninkaa dhakada xiran laha la iga qabsado bahalkiisa blog baan iska saaray
ka kala baloog baan iska saaray ammaanka ugu dadaalay ma garaaco teleefanadiisa ma garaaco badihiisa ma galo berigiis tarays dee la imika waan degi imika ninkaygiya hawlahaygiya faarahaygan iska wataa kowdhe markaa ninkan ha laga baxo ha layga celiyo ninkan iga cishada abar jeclooy hadda markhaati iga qabsada rida xiiran rida dhukuro iga cishada hadhowta odhan doontaa qadra waxba maagta qadraysa soo qaawisay qadra wallaahi bilaahi tallahi hadduu mar dambe isoo garaaco xitaa magacayga dayo isoo garaaco tii dheerayd baa ka dhacaysa tii dheerayd baa ka dhacaysa tii dheerayd baa ka dhacaysa halayga cishado halayga cishado waar halayga cishado kow intaasaan ku dhaafayaa soo dhawaada dumarka Soomaaliyeed iyo wax alaaliya dee wixii maaragtay xaquuqda wax wanaagsan meeshan wadankan aan joogno horta maxaan ka faa'iidnaa laba qodob baan caaw soo galay kowda labada qodob ma soo galay waxa weeye labada qodob ma soo galay waxa weeyaan xaquuqda qofka bini'aadanka ah qofka bini'aadanka xuquuq buu leeyahay qofka bini'aadanka qof kasta xuquuq buu leeyahay xawayaanku xuquuq bay leeyihiin okay Soomaalidu marka haddaynu Soomaalina been baan isu sheegnaa waxaana hebel waa wadaad heblaayo waa wadaadad okay ma ku dhaqanaa marka ma ku dhaqanaa diinta islaamka ina la faray ma ku dhaqanaa boqolkiiba 35 qof baa ku dhaqma kow inta kale xaaraantay cunaan waxbay xantaan been bay sheegaan xaaraantay cunaan beejkiisa ayuu soo xaaraantu cunaa xaaraanta la cunaa gogol dhaaf baa la sameeyaa balaayaa la sameeyaa waa la isdilaa oo qabyaalad baa taalla qurun baa yaalla markaasee looga bixi karaa waxaasoo dhan looga bixi karaa marka waxaba la iska ilaawo horta qof bilaadanaa ku mashquulka Soomaali haddaynu nahay mashquulkii waa inagu badan dadkaynu eriyanaynaa waynu ku mashquulaynaa hooyadaynu eriyanaynaa ilmahaynu eriyanaynaa nin iyo gabadh isqaba ayaa la odhanayaa hebel hebluu qabaa hadduu qabo maxaa kaa galay ha qabo hadduu qabo maxaa kaa galay okay mid baa lagu dawareegay waxa la odhanayaa allahaa gabadha niman baa uga horreeyey dadka kale ma yaqaanin imika Ismaaciil gabadhan carruur bay dhashay nin baa kaaga horreeyey carruuray soo dhashay waxaas isaga shaqadiisa ma inaga nimanka Soomaaliyeed waxba ka xun waa maskaxda iyaga ina waxaan samaynaa dumarka Soomaaliyeed waa dumar wanaagsan waana dumar gurigooda dhaqda runta marka laga hadlo laakiin nimanka Soomaaliyeed waa niman aad u xun waa niman cunsuriyiin kow gabadhu marka laba dhashay lagu waa islaan okay soo idinkii Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam Khadiija intaasoo sannadood dhowr iyo 40 sannadood iyada jirtay guursaday namaydan odhan waar ma been baa waxaan sheegaynaa horta oo maxaa markaa waa yahay idinka cusurnimada idinku wacan maxaa cusurnimadu tahay imika odaygayga baad ka baxsan la ina yar baa tuujinaya wadanka yaraan iyo weynaan ba lagama yaqaan waxa taala labada qof ay isfahme waa la isla duulaa inkay gabadha hadii isfahmeen waa la isla duulaa khalaas maba taalaba goorma laga tagay warka kowde goorma laga tagay warka saliid basooyibiya caawa saliid basooyibiya ujeeda dabalka ka furaya gacmaha laga soo kan weelka soo xalaban gacmi wax marsanba saliid wata waa dhagax way isku duubaynaa aniga horanaydii ku sheegay wata udgoon marka waxa weeyaan Soomaaliyeed cunsurinimada dumarka bahdilaada okay Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam waxa tiraahdeen Nabi Ilaahi Maxamed gabadhiisu shaqayn jiray dharka xayd kale uu meeyri jiray anaga wadaadada ka maqla waxa qadir sheegaysa ma beenba wadaadadan ka maqalay waan maqlay maxaa markaa nimanka Soomaaliyeed waalay war idinka maxay waalay marka maxaa gabadhiina ilma uga hayn weydeen maxaa carruurtiina ugu shaqayn weydeen maxaa gabadhiina u ilaalin weydeen maxaa carruurtiina u tuurtaan wadamadan ninka iyo gabadha waa aragteen ninka iyo gabadhu marka ay kala tagaan xitaa hadday kala tagaan
wiigaba mid baa soo haya waayo labada qof way gaalitee waa sinaan weeye waa dad siman oo sinaan oo cadaalad baa taalla okay inaga ninka waa dhaqaaqayo gabadhaa laleeyahay ha korsato sida kuwaygana nahayo caydh baa lagu siiyaa kan baa lagu siiyaa kan baa lagu waxe war adigu waxa kastaba ilmahan meenad adigu dhalin dhaqan xumadan taalla waa inaanu ka hadalnaa hebla isqaawisay iyo hebla khamre cabtay iyo hebla dhar xidhatay iyo heblaaya waa sidan iyo heblaaya intan carruura dhashay iyo ilaahay baa siiyey alxamdulilah kow marka adduunka dhinac ka soo raaca gaar ahaan dumarka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay kor isu soo qaadaan inaanay niyad jabin inaanay is odhanin anigu 8 baan dhalay haye waxaan arkay naago talabaad waxaan idiin sheegay digniin baan idiin sheegayaa naagaha faraha badan ee kula khamre cabaysa ee iyaga oo go'yaasha huwan waaweyn giddi sawiradiina waa laygu maqan yahay giddi naagolaba waxaa tahay waa laygu kaa maqan yahay ismaaciil anigu qabaa odaygaygii waxbaa ku wareegina akhlaaq sameeya caawid ku raagmay yar baa la joogaya in yar baa la joogaya in yar waxaan idin sheegayaa in yar baa la joogaya Soomaaliyeed aan salaashan hablaha Soomaaliyeedo nimanka iska celiya nimanka iska celiya na xuquuqdiina idinka leh war nimanka idinkuna dee cidin xidhan maysa xuquuqdiina idinka laakiin dumarkiina ilaashada iyo badkiina kowde dumarkan ayaa la layn dumarka lama laayo sunnihii nabiga ma dumarka dhaafay dumarka waxa lagu leeyahay shalmadu dumarkan baase la bushkaraynayee nimankuna aanay wixii nabi maxamed samayn jiray calayhi salaatu wasalaam aanay samaynaynin dumarow kaca anagu garan mayno anagu waa daalay anagu waa yaabanahay anagu waxaan maanaa fahmin sheekadana waa sheeko khalada nimanku khalad bay nagu wadaan nimanku waxay doonayaan keligood loo shaqeeyo nimanku waxay doonayaan keligood wax loo qabto nimanku waxay doonayaan in iyagu qurux badnaadaan nimanku waxay doonayaan inaga hoos ina la mariyo marka nabi maxamed siduu dhaqmaya ha u dhaqmaa inaguna sidii ma garanaysaa dee dumarka iyo sida diintu ina fartay aan u dhaqanno markaasuu dadku dad hagaagsan noqonaya laakiin inta kale ee nimanku dhinaca ka raran yihiin inagu u dhaqmi mayno waanu diidnay waa no more adeer meeshaana la isla wada waasho kowdhe ama si fiican loo wada noolaado waqti badan ma hayo runtii way salaamayaa in yar baan soo galay reerka abarjacna baaqaasaan u dirayaa rida xiiran ninka dhakada xiiran ee garhka orgiye leh ee garhceesaan ha layga qabsado waar xalayna waan idiin sheegay imikana waan idiin sheegay giddi waa layga qabsado intaasoo bayjibuu ii soo furtay iga soo garaacaya ha layga qabsado waana idin salaamayaa ciao bye bye waa inooya habeen dambe hadal badan ma karayo waxa weeyaan anigu haa khadroy raaxayso isaga raaxo dadkan ka bax baradahooda galay haa dee mee badda idin bay ku jiraanoo naagoma horta waa ka wada saaray cajaladihii giddi rabood baa idinku wada maqan markaad 5 cajaladood gashato youtube-kaagaan anigu leeyahay oo aanad weydiisan waa kaa saaraya waayo copyright-ka ana iskale cajalada ana iskale mobilkayga ku jirtaa ma garanayo dee ma garanayo sababtood qof waxiisa aanu ku siinay bal la tuugtiin diinta naagta balanka iska oohinaysa eega bal naagtan u kaadi ilaa waan halka ka sheegaysu waana ku rabood gareeynaya waa kala degaya bal waxay ku hadashay eega kamala tuujiyo inaan kaya talabaad mid kale doonay alla mid kale doonaya oo horta markaynu gabadha Soomaaliyeed maxaad la hinaastaan oo la qaylisaan oo la waalataan markay gabadhu nin ajnabi raacdo war horta qodobkaana ka soo hadladee oo inuu isugu nimaadno gabadha markay nin ajnabi raacdo maxaa loo yiraahdaa caruurtii halla imika anigu halkan jooga Ismaaciil ciyaarayna lagu leeyahay caruurtii oo kan waalanay xiiranay halka saga ka cabay caruurmaayo okay aniga maxaa siilkayga caruurta isku xidhay caruurta wixii ay iga soo dhali karaysan way iga soo dhasheen madaxay soo qarxiseen waa i xumayseen gartina ma taqaanin alla ilmahan cayda maxaa lagu aayay ilma maxay geystay ilma yar waa saqiir anaaba koriya anaaba haya anaa doon ku dhex dhalay anaa iga iib horta caruurta ima weydiin kartaan bataatanba oo 4 caruur leeyma weydiin karo 4 caruur habar jalaada madaba leeyma weydiin karo waayo ninkii dhalay baa iga iibiyay lacag baa iga siisateen caruurtayda lacag baan kala baxay sharcigaynu isla tegaynaa qofkii caruurta doonayo
afarta caruuree waaweyn doonayo soo bax anaaba koriya anaaba haya laakiin siilkayga carruurtu iskuma xidhnay raaxadaydu taa ogow careful haddaba waa kuu sheegay attention baan ku leeyahay attention cajaladaha qaadanayso ila dhagaysta hooyo Soomaaliyeed hooyada wax kaaga baahan hooyada quruxda badan cadayne halkan joogtay guriga quruxda badan ku jirta liibaqteega iska dhaa hooyada gaajoonaysa wax kaaga baahan ayaa ay ugu mashquulin hooyada wax kaaga baahan waa hooyada Muqdisho joogta ee Hargeysa joogta ee wad Soomaaliya joogta ee gaajoonaysa taas wax kaaga baahan hooyo ilmaheed iskuul u tageen oo marna biira cabaysa marna raaxaysanaysa waxba kaaga ma baahneen aqligu ha ku shaqeeyanaya haddaad adigu intaad cunto adigu aan lagu raaxaynin oo ninkaagina naa kale u tagay uu kaa tago oo aad meesha jiifto xaqadraa ku waalan xaqadraa ku waalan qadar waa liberté qadraa ku waalan inan khayar yes waxa loo nasiib waa idinka raysta of na ala bashaglag laakiin amaanka igu dadaala copyright marna way kala daaray qododa YouTube ko waa been YouTube yada horta ma fake baa miyana wax shaqeynaya ahayn qofka YouTube kiisa nafka doonaya cajalad qof leeyahay ma baqaataba kowde ma baqaato naga ku sheegayni ma baqaato marka saasa loo qurux bataa saasa la isu wanaajiyaa niyadaada la dhistaa naag xuno iyadiiba balama ilmahaaga ilmaha garanayaan wadan Yurub ay joogaan wadan bay joogaan hooyadood xorriyadda ka qaadi maayaan anigu dhibaato kuma hayo gurigayga qolkaygan xidhaa hawlahaygan ku jiraa badahooda ma galo waan u hagaajiyaa systemka aan u dhaqdo ilmahayga waa u dhaqdaa haye waa inoo iyo ilmahaygu inay wax bartaan hooyo wacan inaan ahayna waa inoo iyo 5 sano soo socotee dambe after 5 years naagaha dhilooyinkaaho khamrada hoosta ka wada cabayo ubadkoodina laga wada qaaday haa iyagoo taagan qaarna bahalaha ku wada jiraan ilmaha aniga carruurta ugu yar baa yaqaana quraanka carruurtayda Soomaali bay ku hadlaan Soomaaliyad baan waa ka sharaf badan waa ka karti badan siilkana ka waalo sida khatara ka waalo cidlaha la seexana ka waalo anigu waa gaboobaya waa wastamaya been ku sheegi maaye saano yar baleema soo wasin soo adeerkayga ma xishoon waaye soo in adeerkay gurigiisa aad jooga oo in adeerkay uu yahay soo ima dilin xaaga ka daba dhigay iga daba wareegaysa marka ka daba dhigay bal waxa ilaahay mar ku dhashay gartan qaado oo noo gar qaado oo daan khaldanay halka igu soo qora war bilaayadan idaba inkiin daba dhigtay madaxa iga disheen oo idin kala ma tigin oo ma fayoobi Soomaaliyeed oo qof madaxa laga dilay horta marka hore waxba kala ma tigin kow imanaydun dhaqan oo markan dhaqmaatiga gabadha yar ah guriga jooga idinka yariyay oo idinka joogi waay oo waxba siin waay bal maanta markaan raaxaysanaya lay duugayo maxay jaanisnimada inta la keenay iyo balaayanimadan iyo munaafiqnimadan iyo xaaraantan maxaa keenay war dumarkow nimanka ajnabiga waa wanaagsan yihiin gidigiina ajnabiga wada guursada nimankan xun oo idina bayusay ka yaac iskaga yaac oo baara wada liberté baatina nimankan waa nacal abu shaglag walaalkay meerkayso walaalkay wuxuu dhigayso walaalkay anigu markaan quruxda badanahay hologa jiddi Ismaaciil bay ka wada waasheen maxay uga waalan ilaahay dhaar waxaan ugu galay la iskama faane waan Ismaaciil horta waxaan go'aansan inaan ilmo u dhalan go'aan ku gaadho waayo reerka waa reer aad u wacan Ismaaciil waa nin aad u wacan marka waan ilmo u dhalaa waan carruurta mid ugu daraa carruurtan aad buu jecel yahay aniga aad buu jecel yahay marka go'aan baa ku gaadhay inaan ilmo yar halka idin la soo fadhiisto anoo haya islaantii ilmay dhashay islaantii ka 3 jirka maadaa ii dhalay maxamed yare maadaa carruurta alcadii wada dhalay naag walba ka ja ballan waxa kugu qaadeen horto dhalaba oo aan ilmaha mid ugu daraba oo kiinada dhashay la iskaga celinayay dawooyinka waxaan iska daayo taana go'aankaasan qaata Ismaaciil waa been mid u dhalaa xaasidnimada Soomaalida daraadeed yaa dabadna anagoo ilmaha yar wadna bidhaadhana soo ciyaarsan halka la soo galnaa haweenina alla ku yahay
waayo isagu ilmaha kuwiinni baabu ilaaliyaa oo cuntada idinku kariya briska idinku kariya waan idinka baxsan waa ay warka ma doonayo yaa waqtigaygaan ilaashanaya albaabkaan furayaa odayga daraalli aan ahay dabadaan ku sugayaa alka daaradda biyaan cagaa u gelinayaa kareenkaan u marinayaa waan u qubaynayaa isaga laftirkiisa dawaynu raaxa iga helo marka raalli aan nahay raalliyo wayse sii diyaariyey waxaan doonayaa haddana shukumaankii alaabtii baan u diyaariyey sarartii baan goglay ma idin tusaa sarartii saan u goglay kowdhe marka raalliyo saa ugu boodaa rabaa soo galaano dabeedna xagga sare geeyo u soo qubaysto dabeedna cuteeyo dabeedna aanu waqti qaadano waqti idin ma hayo wallahi waqti idin ma hayo ciao kor isu soo qaada hanaga awe waa idin salaamayo wallahi inaan waqti ka badan intaa idin siinay idinna haynina kowdhe marka waqti inta disoo siinay way disoo siiyay ilaahay bay iga kiiliyay Allah sheri wangu wachoni tala ujama wae usinihala manare mzimu hawara